السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. daawadayaasha qiimaha leh waxaan rabaa in aan halkan ka soo jeediyo arrin Soomaalida dhaqan u ah oo waliba dhaqan soo jireen ah oo ay aad iyo aad ugu adag tahay. Maan rabaa in aan ka hadlo arrinkaas oo aan markii aan si dhab ah aan u sii xooraansaday oo aan u sii dhabagalay aan arkay in uu meelaha qaarkood uu ku wanaagsanayn. Soomaalidana waxay ku maamahdaa caado laga tago cara ay leedahay. waa sax mararka qaarkood laakiin mararka qaarkood waxaa suurtagal ah dhaqan aan lahayn ama caado aan lahayn in ay tahay mid dhibaato ah ama dad gaar ah dhibaataynaysa. Masal ahaan Soomaalida waxay caado u leedahay markii ay isqabtaan wiil iyo gabar markay isqabtaan ama xaas iyo saygeeda markay isqabtaan waxay caado u leeyihiin in gabadha inta badan la yiraahdo gabar soo ooyday ayaa garta la siiyaa inta badan. waxaad ila moodaa labadan qof oo isqaba ama labadan qof oo wiilkan iyo gabadhan ah laga yaabee in gabadhu ay khaldan tahay oo ay wax khaldan samaysay wiilkuna uusan ku sameynin wixii ay samaysay iyo wax la mid ah. oo inta badan waxaan ognahay in wiilashu ay ka dulqaad badan yihiin gabdhaha. sidaas la alligeed gabadhii oo ka gardaran wiilka ayaa waxaa laga yaabaa markii ay oydo oo ay u tagto walaalaheed ama tolkeed u tagto aabaheed walaalaheed macdiradeed in ay soo qaamaan dagaal. haddii aysan dagaal isu soo qaaminna ay erga soo diraan u yimaadaan wiilka dadkiisii aabihiis adeeradiis ehelkiis walaalihiis loo yimaado gar loo dhigto la yidhaahdo wiilkiina hebel ahaa gabadheena ayuu ka soo oohiyey. waxaa suurtagal ah qoladii loo soo ergooday iyaga oo aan oran maxay gabadha ku oyday wiilkuuse muxuu gabadha ku sameeyey iyadoo aan la oran inta badan in ay ka bixiyaan wax la yidhaahdo xaal iyo xumayn. waana caado Soomaalidu ay leedahay run ahaantii. waxaa laga yaabaa gabadhaas oyday in ay wiilka ka gardarnayd. haddaan usoo laabto sheekadu meesha ay u biyo dhacayso iyo nuxurka sheekada inta badan waxay ku dhacdaa qoysaska isqaba. waxaad arkaysaa wiil iyo gabar isqaba oo reer dhaqanaya alxamdulilah rabbil caalamiin. waxaa la yidhi carab iyo ilka ayaa isugu dhow oo isqooma. waxaa dhici kartaa in ay timaado in wiilku ay isqabtaan maadaama la wada dhaqmahayo oo hal guri la wada joogo in yacni ay timaado isqabashooda oo ay imaanaysaa waana macquul. waxaa laga yaabaa gabadhii iyadoo wiilkii uusan oran kir kac gacan qaad uusan u geysan aflagaado uusan u geysan markii sheekadii ay isku qabteen ay ku qanci weyso gabadhu inay inta galbasaarkeedii galabka saarato ilmihii u joogay guriga u joogay ay dhashana ay ka tagto oo ay u tagto tulkeedii aabaheed iyo adeeradeedii u tagto wixii markaas ee lahaa oo u dhowaa inay u tagto suurtagal ah oo ay ku tiraahdo ba'ayay hoogayay dhintayay ayadoo wax lagu sameeyba aysan jirin. waxaa laga yaabaa mararka qaarkood in wiilka isaga ahaa isagoo aan la ergeyn xitaa mararka qaarkood in bannaanka inta lagu helo loo geysto jaa'ifooyin waaweyn dil xitaa mararka qaarkood ay dhacdo. waxaan is leeyahay arrinkaasi waa arrin yacni soo jireen ah. haddiiba ay dhacdo oo ay yimaadaan wiilkii gabadha ay ka oyday gabadhii oyday tolkeed walaalaheed iyo aabaheed iyo adeeradeed haddii ay yimaadaan oo ay gogol u dhigtaan in case ay dhacdo wiilka tolkiisii waxaa laga yaabaa sidii hore oo kale aan idiin sheegay in gabadhii iyo wiilka aan loo wagar qaadin ee la yidhaahdo waxaan wadnaa gabar oyday si reerka u dhaqmo. lama fiirinayo maxay ku oyday gabadhu. laga yaabay wax dan u ah reerka oo wiilku ku talinayay in ay diiday sidaas la alligeedna ay colaad abuurtay iyo qaylo dhaan lagu soo baxo iyadoo aan la weydiin sababta la isku qabtay iyo waxa dhacay iyo wiilkan waxa uu ku qaldan yahay iyadoo aan la is weydiin in la yiraahdo okay wax kastaba ahaato talow waxaan gogol fadhinaa annagu ma rabna inaan reerkii dumino reerkii gabadhii baan wadnaa hadda gabar soo oyday wixii ay lahayd baan kaga fadhinaa in la yiraahdo gabadhiina waan wadnaa.
isla mar ahaantaas wiilka aabihiis ama wiilka tulkiisi hadal kale uma furna oo aan ahayn talow waxaan idiin wadnaa xaalix iyo xumayn sabeyn baan idiin wadnaa raaligelin baan idiin wadnaa in cimaamad madaxa laga saaro odayaashii meesha yimid in xaal iyo xumayn la siiyo in la bixiyo kharash la bixiyo marka waxaad moodaan in arrinkaas ah gabar oyday gabadhu waa bashar wiilkuna waa bashar waxaana laga yaabaa in ay ka xifaalsan badan tahay gabadhu wiilka ka xifaalsan badan tahay nise ha ahaato laakiin ka xifaaltan badan oo ka dhabiirtan badan oo ka oohin badan oo waxay og tahay in markii ay oydo ama gurigoodii ay aado in ay helayso garab u hiilinaya oo ah gabar soo oyday marka anigu waxaan qabaa arrinka ah gabar soo oyday in xaal la siiyo waxaad moodaa in uusan fiicnayn gabadhu haddii wax gar ah ay ku oydo oo yacni inta la baaro oo si xaq ah oo ilaahay uu raalli ka yahay loo baaro wixii dhacay haddii gabadhu ay ka oydo ay tahay wax gar ah in markaas iyada ah wiilkii la cisaaro laakiin iyadoo aan la weydiin wiilkii wixii ay gabadhu ku oyday in la yidhaahdo gabar oyday baan rabnaa wixii ay lahayd in la siiyo anigu waxaan u qabaa inay u baahan tahay ku noqosho oo dadka loo xaqsimo wiilka iyo gabadhu waa laba qof oo bashar ah wiilku waa bashar gabadhu waa bashar sidaas la adligeed si aysan usoo laalaaban dumitaanka reeraha oo ay inta badan ka qayb qaadato gabar oyday oo bilaash ku oyday waxaan qabaa in dib loogu laabto ereyga ah gabar oyday waxay leedahay xaal iyo xumayn wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu